Santarka Heegaale oo ka tirsan degmada Danood ee gobolka Doolo waxaa laga dhagax dhigay dhismaha macad aad u weyn oo lagu baran doono shareecada Islaamka iyo luqadda Carabiga. Gudoomiyaha degmada Danood Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo madaxa arrimaha Islaamka degmada Danood Sheekh Xiis Cabdinuur, gudoomiyaha maxkamadda shareecada degmada Danood Sheekh Bashiir Cabdiraxmaan ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay macadkan halkan laga hirgelin doono. waxaa sidoo kale goobjoog ahaa madaxa xafiiska ganacsiga ee gaadiidka ee degmada Danood iyo mas'uuliyiin kale. waftiga sida culimada gobolka Cayn, Cuqaal iyo waxgarad kale oo ka kala yimid shantarada hoosimada degmada Danood ayaa lagu casuumay xafladda dhagax dhigga santarka xafladda dhagax dhigga macadka Heegaale. waxaynu joognaa santarka Heegaale ee degmada Danood ee gobolka Doolo. aynu halkan insha Allah taala ka dhagax dhigi doonaa dhismaha maxadka Heegaale. waxaan u mahadcelinaynaa xubnaha ka socda dawladda, gudoomiyaha degmada Danood Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim iyo xubnaha kale ee la socda iyo dhammaan odayaasha deegaanka ee halkan ku sugan ee waxgaradka iyo culimada. insha Allah waxa hadalka inoo furi doona gudoomiyaha santarka Heegaale سياد محمد عثمان بنكسر دوينيا فليتفضل مشكورا. كيف هوري لقد حدقو سنترك Heegaale intii aan maartay joognay waxa soo taraya barnaamijyada horumareed ama diin ha noqoto ama maadi ha noqoto dadku soo fahmayaan barnaamijyadaas oo lagu dhisayo nidaam tabarucaad iyo islaaqaan oo bulshada iyo meel kasta ay kala joogto dadka islaamka ay ka qayb qaadanayaan. waxaan لما كسر دوينا وفودا كلا جدسنا سقطة وهو قدوميها دقمة دنود عبد الرحمن محمد إبراهيم قدوميها مجلس دقمة دنود حيس عبد النور مدح قرصور كدقمة دنود بشير شيخ بشير يدمان علماء الدين تي عقاشة كتب قبل كعين عن كلنا دلنا كسر دوينا ستركيني Heegaale degmada Danood gobolka Doolo. waxaanu dhagax dhigaynaa xafladaas iyo maartay dhagax dhiga iyo xarka jarkaas ku jirta oo goob joog loo wadayahay. waxaan kastoo ay maartay arintan u taalo qoseysana waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan maartay dhagax dhigaas macadka diiniga lagu baranayo arrimaha diinta. waa afar balood oo halka aan taaganahay oo dhow walba inaga jira. waxa macadka iibiyay nin la yiraahdo Saleebaan Faarax ama qof walba sidoo u yaqaano Shanfool, Saleebaan Shanfool. Allah barakeeyo dad iyo dunyaba. ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. ilaahay waxaan ka baryaynaa beeraha jannada kamid ah uga dhigo. ilaahay ilmaha u hagaajiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ooriyaha u hagaajiyo. dhammaantiinba Allah ina cafiyo. dadkiina wax u qabta waxbara macadka gacan ka geysta. lama hadlayo degmada Danood kaliya, waxaan la hadlayaa gobolka, waxaan la hadlayaa meesha la yiraahdo ismaamulka deegaanka dawladda barakaysan. Allah barakeeyo, alla hanoo hagaajiyo. waxaan leenahay wax nala qabta. wararka wixii ka dambeeya wararka baynu gudbi doonaa masaajidka iyo wixii lamida. imkana odayaasha ama maamulka degmada baan ku soo dhaweynaynaa insha Allah. koowaad marka labaad aad baan ayaan u bogaadinayaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhismaha maxadkan asagoo ah macnaha asagoo aan ku naqaano dadka deegaan santarkan iyo aagan yihiin dad macnaha isku tashada iskood wax u qabsada horukaca iyo inay bulshadoodu ay taaba gashaan dad aad iyo aad u dananaya. halka waxaan leeyahay ka sii wada barnaamijkaas macnaha isku tashiga iyo wax wada qabsiga macnaha waa mid macnaha la garab taagan yahay ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan insha Allah aanu gaarsiin doono lana og yahay macnaha marka bulshada ay wax qabsanayso wax la timaado ay dhanka dawladdan ay wax ka tirsan laakiin aadan noqonin qof waliga macnaha iska fadhido oo gacmaha horsanaya. laakiin bulshadan waxa lagu yaqaanaa oo looga bartay in macnaha ay wax qabsi ay leeyihiin, ay isku tashi leeyihiin, ay isku tashanayaan, waxna qabsanayaan. waxaan ognahay macnaha ceelkii halkan ka socday oo muddo dhowr jeer macnaha yar fayl garoobay. haddana macnaha insha Allah uu taabageli doono sidina socon doono. haddana waxaan ku jiraa macnaha gacantii saddexaad oo masjid in la dhameystiray maxadkan hadda la dhagax dhigayo. insha Allah waxaan rajeynayaa in macnaha asaguna uu dhamaan doono oo ku dhamaan doono. cid kasta oo ka qayb qaadanaysa macnaha aad iyo aad ayaan soo dhaweynaa waana bogaadinaa. waxaan macnaha u rajeynayaa inta kale aan ka qayb qaadanayna in macnaha ay gacan ka geystaan macnaha aqli iyo fikir iyo dhaqaale iyo xoogba inay ka geystaan. marka koowaad waxa mahad iskale oo Allah ayaa iskale. marka labaad
culimadan iyo muxsiniintan isxilqaantay macnaha sharafta mudan macnaha dadkoodii u damqaday ayaa iyagana macnaha ayaan bogaadinaya una mahad naqaya. waxaan maanta dhagax dhigaynaa maalinta oo ah maalin khamiisa taariikhduna ay tahay 19 bishii 12aad 2014 macadka santarka heegaale ee degmada Danood gobolka Doolo yaan dhagax dhigaynaa insha Allah taala hadii ilaahayna gaarsiiyana waxa inoogu xigaya duhurka masaajidka inaynu macnaha aynu ka furno xadhiga aynu ka furno isagana sidan oo kale aynu macnaha isugu nimaadnaba inoogu xigaya waxaanu anagu 100% soo dhaweynaynaa hadaanu nahay golaha arrimaha islaamka qololahan diinta ee socda iyo khayrkan dadka macnaha muxsiniintu ay mar walba meel walba ku sameynayaan masaajida ay dhisahayaan macaahida ay furahayaan aad baan u soo dhaweynaynaa 100% waan soo dhaweynaynaa waana cid kasta oo hawsha wada oo fikirka wanaagsan la timaada waanu ku taageeraynaa waana garab siinaynaa waana la taaganahay waxaan leenahay dadka muxsiniinta ah ee samafalka ah ha caajisina ha noogina ha daalina ilaa inta macnaha saacadu ay nooga imanayso aynu hawsha wanaag ahaynu sameeynay ee aynu la nimid ee khayrka ah aynu sii wadno muuqata dadka halkan deegaankan jooga heegaale ee bariga Danood inuu abaabul farabadan ka muuqdo iyo baraarug farabadan oo dhabtii muddo dheer ka maqnaa arinta aad baan u soo dhaweynaynaa arin aad loo bogaadiyo waxaan leenahay wax laga marxaati noqdo oo aanu maanta goobjoog u noqono waxyaabaha ugu sharafta badan muwaafaqa muuqata muwaafaqadana waa la amaanay ida dakhalat al muwaafaqa shay'an zaanatu bi nabi alayhi salatu wasalam wa ida dakhalat al mukhalafa shay'an shaanatu hadii isfahanka iyo midnimada iyo wax wada qabsigu uu shay gudihii galo wuu qurxiyaa wuu maamuusaa sharaf iyo karaamo iyo milgaa ka muuqda hadii takhaaluf iyo kala tag iyo isu dabar jeedin ay muuqataana meesha foolxumo iyo kala tag baa meesha yimaada waxaan leenahay sida ikhwaanka walaalkana muxsinka dhulka uu bixiyay waa in bulshada kale ee deegaanka soo jeeda iyo annaga iyaga xaggan degmada ka nimaaynu iskaashanaa halkan isugu timid waxaan leeyahay shakar Allahu sa'yakum wa baraka fiikum wax khayr baynu isugu nimid inta haddaan ka soo gudbo waxaynu u ducaynaynaa ugu horeyn oo waxa weeyaan aynu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa khayr fara badan xaaji Saleebaan Faarax Shanfool oo dhulkan waqafka ah bixiyay xaaskiisoo dhimatayna u bixiyay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waqafkaas waa sadaqa jaariya Allah gaarsiiyo isagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku barakeeyo ha ka aqbalo inta waxaan ku darayaa waa dhagax dhigii weeye waana macad diiniya oo shariicada lagu baranayo islaamka hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka iyo toosinta iyo tarbiyada diinta cid kasta oo jecel inay khayrka ka qayb qaadato oo xoolaheeda ay geliso waxaan ugu baaqaynaa insha Allah ta'ala inay qayb ka noqoto oo waxa weeyaan ama dabadda ha ahaato ama deegaanka ha ahaatee ay waxa weeyaan ay ka soo qayb qaadato waana meelaha ugu baahida badanoo mar haddii waxa weeyaan macad horena uusan ka jirin meelba meeshay ka baahi badan tahay arrimaha khayriga in laga fuliyo way ka sii khayr badan tahay oo ajarka waa la sii laban laabayaa waxay ugu dambeysay maxadka iyo masaajidka laga qariyo gobolada marka wax laga sameeyay waa ilaahay mahadi mar hadaynu maanta isugu nimay inagu hareeraha ka taagan alxamdulillah ilaahay baan u mahadnaqayaa arin laba qodob baan rabay inaan ka hadlo mid wuxuu ahaa ducadii gabadhaan rabay in loo duceeyo midna wuxuu ahaa dhulka in aan u waqfay xaasiga dhintay kaltuun xaaji cabdilaahi oo iga dhimatay Allah yarxamo way iga horeysay qofkuna hadduu ka horeeyo wixii laga dabageeyay oo baan faacay wixii isagu hormarsado laakiin maanta anu waa noolay waxba aan qabsan karo laakiin waxa ma qabsan karto waxaan ugu talagalay insha Allah waxaan ugu talagalay rabbiga khaaliqi inuu miisaanka xasanaadka ugu daro inay dambi dhaaf ku hesho idinkuna aad u ducaysaan aniga ujeedadadu intaas ay ahayd qodobka labaad ee ii weheliya waxa weeye mahadnaqaan idin mahadnaqo dhammaan intii qaban qaabisay
intii lagu soo bixisay juhdi meel fog iyo meel dheerba idinkana waa idin mahadnaqayaa runtii allahna subxaanahu wa tacaala waa inoo sheegay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wacdama ajra waa rabbi subxaanahu wa tacaala leey wixii aad hormarsataan waxaad ka helaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa isaga oo ka khayr badan oo ka ajar weyn oo ka weyn baad ilaahay agtiisa ka helaysaan marka waxaan leenahay dadka deegaanka u dhashay inay ka qayb qaataan falyatanaafas ilmutanaafisuun in loo tartamo khayraadka fastabiqu lkhayraat inay khayraadka u tartamaan oo ka soo qayb qaataan hadday yihiin qurbajoogta allaha barakeeyo oo wax badan ka qabtay masaajidkana wax badan hawl badan ka geystay maxadkana aan rajaynayno inay qayb badan ka qaataan hadday yihiin dadka deegaanka u dhashay oo laga rabo geela iyo adhiga iyo lo'daba in la keeno ama diin ama dadnimo ama dawlad ama sharaf ama karaamo wax ku qabta mahadnaq iyo wuxuu leeyahay in la bogaadiyo hadal badani hamama buuxsho laba qodob baan hadda ka dhawaajinaya oo yaryar anigu halkan buurtan baan geela ku raaci jiray muddo hore oo muddo dheer baan halkan joogi jiray oo aan geela ku raaci jiray alxamdulilah waana ku faanaa meeshaan geela ku raaci jiray iyo meeshii magaranays aan joogi jiray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shacabka kelmad baan odhanaya dowladdana kelmad baan odhanaya aabbahay xaaji maxamed leeye wuxuu ii sheegay nin la odhan jiray cali galbeed oo degaankan ka mid ahaa inuu buurtaa aad aragtaan heegaale waagii baryeyba dhagax tuurta kaga soo qaadi jiray oo masaajid halkana uu agdhigi jiray masaajidkii baa lagu dhisay baa leey anigu inuu kamila in kala warmay laakiin subax walba dhagax buu soo qaadi jiray dadka fadhiya maqaaxiyaha iyo xoogga la fadhiya inay fadhiga ka kacaan oo wax qabsadaan oo ay dalkooda iyo dadkooda hore u mariyaan oo dawladda Itoobiya iyo deegaanka ay wax la qabsadaan dawladda iyo diintu waa walaalo waxa loo baahan yahay dadka shacabka inay dalkooda wax u qabtaan oo ariga iyo geela iyo xoogga iyo ay isu geeyaan wixii dhaqaale ah waxa weeye dawladdu wax walba noo qabo macquul maaha laakiin waxa macquula adduunka si laga yaqaan daafaca caalamka waxaan haystaa wax igu dar dawladdu waa ku joogsanaysaa waa ku soo dhaweynaysaa waa ku jeclaanaysaa laakiin wax isii uun waxba adduunka laguma noqdo saas Allah ta'ala hadaan ugu nahay reer qararo iyo heegaala waa isku mid wixii heegaala u soo kordhana qararo way soo kordhaan marka macadka waa soo dhaweynaynaa aad baan soo dhaweynaynaa meel diinta ilaahay lagu baranayo oo wixii ilaahay raali ka ahaa lagu dhigayana meel wax u dhiganta ma jirto marka qof kasta oo muxsina waxaan ka rajaynaynaa inuu ka qayb qaato sida masaajidkii ayaanta dhaweed la bilaabay in maanta xariga looga jarayo oo u dhameystiran yahay isna in loo dhameystiro baan garanaysaa aynu rajaynaynaa insha Allah ta'ala kala inaan baaq u diro cid kasta oo ka soo jeeda gobolada ama deegaan ka soo jeeda inay ka qayb qaadato dhismaha macadka inay ka qayb qaadato ayaan rajaynayaa uguna baaqayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo ah odaga maxadkan maanta aynu taagannahay aynu dhagax dhigayno inoo iibiyey ah aad iyo aad baan u mahadinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay waxaan ka rajaynayaa wax wanaagsan alla inuu ugu bedelo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax kastoo xun oo ka yaabo ilaahay inuu ka duwo ilaahay waxaan ka rajaynayaa wax kastoo wanaaga oo uu doonayo ilaahay inuu sakhiro wax khayr ay doonayaan Allah ku siiyo gabadha xaaskiisa dhimatay ee u waqfayna Allah u naxariisto ilaahay ha sii gaarsiiyo xasanaadka ilaahay saasaan uga baryaynaa ugu dambeyntii waxaan ku soo ururinayaa haddii la yiraahdo afkii cuqaashaad ku hadlaysaa haddaanu anagu cuqaasha nahayna si gaar ah isu yara xilqaamaynaado warsoosaa ma hadii cuqaasha si gaar ah waxaan u leeyahay maadaama aynu dadka hormuudkiisii nahay maaragtay wax ka qayb qaadashada koobaad iyo dhiirashada inagu aan samayno